kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado ilaahayna idin xifdiyo dhammaantiinba waxaan idin leenahay muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareysa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa in umuuraheeda uu saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u barakeeyo awlaadda inta awlaaddoonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta guurdoonkaana ilaahay guur iyo mustaqbal wanaagsan ha siiyo biidnillaahi alkariim qof walba muuqaalka la gareeyana ilaahay subxaanahu wa tacaala wax allaale wuxuu jecel yahay oo niyadiisa ay ku jirta ilaahay asiya xaasidka waxaa leenahay alxaasid laa yaflax wamin shari xaasidin idaa xasad adduunyo iyo aakhiro waxaa kuu dambaynaysa hoog iyo khasaara biidnillaahi alkariim maxaa yeelay xaasidka ma laha faa'iido oo waa xaasid ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jecla xaasidka ee muuqaalka la garay leegta lacag ma aha waxaan eegi doonnaa warbixin xasaasi ah oo ah xog xasaasi ah taas oo ku saabsan qaabka loo sii daayay wasiir cabdirashiid janan oo ahaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka jubbaland ayadoona aan idiin soo gudbin doonno xog aysan ogeyn bulshada oo ku aadan taageerayaasha wasiir cabdirashiid janan oo gobolka gado ku afduubtay dad aad u tiro badan oo madaxweyne farmaajo heeb ahaan ay isleeyihiin ayna ku jiraan laba ka mid ah adeerada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo haddaba arrintaasi qaabka ay u iyo sida muqdisho uu kaga baxay wasiir cabdirashiid janan ayaan eegi doonnaa haddaad nagu cusub tahay ka mid noqo kumanaanka kun ee dadka ah ee nagu xiran si aad u heshid xogagta aan soo gudbinno oo furo gambaleelka sidaad u naqatid qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelinno haddaad saaxiib nala tahayna waad ku mahadsan tahay wixii ra'ya ah qaybta hoose ee fariimaha nagu rab biidnillaahi alkariim ducada waxaan ka dhigan doonnaa qaybaha dambe hadduu ilaahay ka raali noqdo laakiin waxaan eegi doonnaa waxaa saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada si weyn loo hadalhayaa qaabka uu u baxsaday wasiirkii amniga dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdirashiid janan kaas oo u xirnaa dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee la yidhaahdo nisa kadib markii laga qabtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport ee muqdisho asagoo kusii jeeda magaalada addis ababa waxaana wasiir cabdirashiid janan soo qabashadiisa si weyn u soo dhoweeyey hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka sida hay-adda amnesty international iyo human rights watch kuwaasoo ku ammaanay dowladda federaalka ee soomaaliya tallaabada ay ku soo xireen wasiirkii amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid janan waxaana hay-adahan u dooda xuquuqul insaanka ay ku eedeeyeen dhowr mar in wasiir cabdirashiid janan gumaad iyo xasuuq uu ka geystay deegaana ka tirsan gobolka gado ka soo bilaab shagaashamaadkii ilaa wakhtigan la joogo waa sida ay ku doodayaan hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ee cambaareeyey wasiirkii amniga ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdirashiid janan waxaana intuu xirnaa wasiirka amniga janan la geeyey maxkamadda gobolka banaadir ayadoona warbaahinta ay baahinaysay muuqaalo ku aadan wasiir cabdirashiid janan oo hortaagan maxkamadda gobolka banaadir islamarkaana loo jarayo waaranka ku aadan in hay-adda nisa ay sii baarto dembiyada uu geystay wasiir janan laakiin hal mar oo qura ah maalmo ka hor waxaa laga warhelay hay-adaha ammaanka oo shaacinaya in wasiirkii amniga ee jubbaland cabdirashiid janan uu ka baxsaday xabsi hay-adda nisa ee maamusho ku yaal magaalada muqdisho waxaana hay-adaha amniga xilligaasi ay codsanayeen in ciddii aragta wasiir janan lagu soo wargeliyo hay-adaha amniga sida baraha bulshada ee ku daawacday gabadha ah taliyo ku-xigeenka ciidamada booliska soomaaliyeed jenaraal sakiyo taas oo dad badan ay la yaabeen islamarkaana amakaag ay la naqatay in wasiirkii amniga ee jubbaland si fudud uu kaga baxsado hay-adda nisa waxayse in badan oo ka mid ah bulshada ay rumaysan waayeen warka ka soo baxay hay-adaha amniga oo ku aadan in wasiir janan uu ka baxsaday hay-adda nisa laakiin 3 maalin kadib waxaa shalay laga warhelay in magaalada Kismaayo uu ka degay wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan kadib markii madaxda maamulka Jubbaland ay shaaciyeen in wasiirka amniga uu soo gaaray magaalada Kismaayo waxaana dad badan ay isweydiinayaan qaabka wasiir Cabdirashiid Janan uu u baxsaday haddaba waa tan xaqiiqda qaabka uu u baxsaday wasiir Cabdirashiid Janan iyo sidii lagu sii daayay wararka ayaa xaqiijinaya in wasiir Cabdirashiid Janan oo muddo fog maamulayay deegaano ka tirsan gobolka Gado oo ay ku jirto degmada Doolow iyo degmooyin kale isla markaana madax u ahaa degmooyinkaasi ka soo bilaaw wixii ka dambeeyay 95 ayaa waxa la sheegay markii lagu xiray magaalada caasimadda u ah Muqdisho wasiir Cabdirashiid Janan in taageerayaasha wasiirka ay maleeshiyaad taabacsan ay afduubteen dad aad u tiro badan oo ay ku jiraan laba kamid ah adeerada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kuwaas oo la sheegay inay ku jireen dadka ay afduubteen maleeshiyaadka taabacsan wasiir Cabdirashiid Janan ayna ku afduubteen degmooyin ay kamid tahay Doolow iyo Luuq sida warar xoogaana ay sheegayaan
dadka la afduubtay oo ay ku jireen laba ka mid ah adeerada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa la sheegay in magacyadooda la kala yiraahdo Cali iyo Daahir kuwaasoo la dhashay madaxweynaha Soomaaliya aabihiis madaxweynaha hadda jooga aabihiis Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ay ku xireen sii deynta dadkan ay qabsadeen ama ay qafaasheen maleeshiyaadka taabacsan wasiirkii amniga ee u xirnaa dowladda Soomaaliya in si degdeg ah loo sii daayo wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxaa dabadeed madaxweynaha Soomaaliya iyo taliyaha hay'adda NISA Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ee u direen gobolka Gado tiro badan oo ka tirsan ciidamada NISA waxaana la sheegay ku dhawaad 300 oo ciidamada NISA ka tirsan in la geeyay deegaano ka tirsan gobolka Gado si ay u soo furtaan dadkaasi ay afduubteen maleeshiyaadka taabacsan wasiir Cabdirashiid Janan waxaana ka mid ah dadkii halkaasi aaday taliye ku-xigeenka hay'adda NISA ninka lagu magacaabo Kulane isla markaana ay isxigaan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo laakiin arintii way suurtoow waxaana dib u soo noqday Kulane iyo waliba tiimkii loo diray gobolka Gado kuwaas oo ku wargeliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dadkaasi xaaladooda ay tahay mid halis ah haddii la isku dayo in la soo furtana ay dhici karto in maleeshiyaadka ay haystaan inay laayaan taas oo keentay in gorgortan lala galo odayaasha ka soo jeeda beesha uu ka dhashay wasiirkii amniga Cabdirashiid Janan oo markii dambe hay'adda NISA ay sii daysay odayaasha ayaa yimid magaalada caasimadda ee Muqdisho waxayna la kulmeen madaxweyne Farmaajona wuxuu ogolaaday in la sii daayo wasiir Cabdirashiid Janan asoona u ballan qaaday odayaasha in la sii dayn doono wasiirka amniga isla markaana maleeshiyaadka taabacsan wasiir Janan ay sii daayaan dadka ay haystaan dabadeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyaha hay'adda NISA ayaa madaxweyne Farmaajo wuxuu u xil saaray in si basar ah oo aqliyeysan loo sii daayo wasiirka amniga Cabdirashiid Janan isla markaana aysan ka xanaaqi karin hay'adaha ama international community-ga ay ku jiraan hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka oo markii hore soo dhaweeyay qabashada wasiir Cabdirashiid Janan waxaana arintaas durbadiiba ku dhaqaaqay taliyaha NISA Fahad Yaasiin oo fulinaya amarka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo waxaana Fahad Yaasiin amar uu siiyay taliyaha ilaalada goobta uu ku xirnaa wasiir Cabdirashiid Janan kaas oo magaciisa lagu sheegay kabtan Caaqil waxaana Caaqil loo dhiibay lacag aad u tiro badan taas oo uu dhiibay Fahad Yaasiin wuxuuna Caaqil u sheegay Fahad in lacagtan uu ka dhigo in laga soo qaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe isla markaana uu qaybiyo askarta iyo waliba Caaqil iyo wasiir Janan ay israacaan arintana laga dhigo in wasiir Janan uu baxsaday sida Fahad Yaasiin uu ka dhaadhiciyay Caaqil oo saaxiib dhow ay yihiin isla markaana madax u ahaa madaxa ugu sareeya ilaalada xarumaha ee maamusha hay'adda NISA waxaana la sheegay in arintii sidaasi lagu dhaqaaqay durbadiiba si loo fuliyo amarka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo dabadeed waxaa dhacday in wasiir Cabdirashiid Janan laga sii daayay xabsiga isla markaana ay sii raaceen dhammaan ilaaladii ilaalinaysa oo uu ku jiro ninka ugu sareeya ninka ugu sareeya madaxda ka ah ama madaxda u ah dhammaan furhayaasha xarumaha NISA ee maamusha ee lagu xira dadka ee Caaqil waxaana la sheegay dabadeed in lagu xiray Caaqil xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya madaxna ka ah mid ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira mudooyinkii dambena si weyn ugu kacsanaa madaxweyne Farmaajo Cabdiqaadir Cosoble ayaa la sheegay in heshiis ay wada galeen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo saaxiib dhow ay yihiin muddo fogna ay ka wada tirsanaayeen ururka al-Ictisaam waxaana la sheegay in mudooyinkii dambe si weyn saaxiib ay u yihiin xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble iyo Fahad Yaasiin waxaana Cabdiqaadir Cosoble 3 cisho Muqdisho uu ku hayay wasiir Cabdirashiid Janan kadib uu saaray doontaasina wasiir Janan ay geysay magaalada Kismaayo laakiin bataatanba ma jiro wararka sheegaya in wasiir Janan uu ka baxsaday xarun ay maamusha NISA waana mid lagu qaldayay hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo waliba bulshada Soomaaliyeed waxaasa arinta jirta ee tahay in wasiir Cabdirashiid Janan uu lagu sii daayay maleeshiyaad asi taabacsan inay afduubtaan dad aad u tiro badan oo ay ku jiraan laba ka mid ah adeerada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan dadka ay afduubteenna waa dadka u xiga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasna waxay keentay in wasiir Cabdirashiid Janan laga sii daayay xabsiga waxaana sii deyntiisa ka qayb qaatay oo loo xil saaray Fahad Yaasiin iyo xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble oo doon ka soo saaray Muqdisho haddaba wixii arrimahan ku soo kordha waxaad kala socon doontaan barnaamijyada kale hadduu Allah awood leh uu saamaxo haddaba nagu xirnaaw si aad u naqatid qofka ugu horeeya daawada حوقت حساسية أن سوق بنو لما أنت وحنا الله إنها إلهي حفظي إلهينا أمورها الذين سهل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعله
أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إله لما أنت بأمورها الله إنها ينسهل هذا أمورها سهلة. إله لما أنت بأولاد إنه بركة. إله أنت أولاد دون كان إله أولاد باري أسي. إله أنت جردون كان جوري مستقبل ونأكسن سي. إله لما أنت بوحن قوي سنة جرجار كاي كلمة هذا إن حريص هذا يا الله. إله لما أنت بنون حريصه. إله مقعد ونأكسن الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى. وحن قوي دي سنة جرجار كاي كلمة هذا. إله لما أنت بينو جرجار وينو حريصه. إله لما أنت بفرج خير خب إله وينوفر هذا فرج فرع. إله وحن قوي دي سنة نصر جاجا يقولش هذا إله ضدك الصوماليين على كي اللي بعتذك الدلقات أو إله قرن مدي الصومالي يدب علي. وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.